بسم الله الرحمن الرحيم كل توعنا ونكسن صاحبة قيمها بدن ما يقول بون قدام ونسان كسر دوادا برنامج كان اسبوع لها أدو آلا بينات ستوسة كلا سعتان جنال كيجا ونقلق قاطو عثمان عرير وآلا بقولون دولار ربح السياسة الصومالية مركو جور سبحان الله عثمان كسر دو برنامج كا وري عثمان وندوه هي وأنا كاجم هدعلنا يا برنامج كان أسبوع والبقى كيجا فلقونا ربح السياسة إيوه وحكجرة الصومالية وأنا دوه عثمان عثمان waxaan rabaa Cismaan maanta inaan kaga faa'iideysano dhowr qodob kan ugu horeeyo wuxuu noqon doonaa arrinta ka soo cusboonaatay Hirshabeelle waxaan sidoo kale ku soo qaadan doonaa kalluun ku bedelasho mataqaanaa qaad oo aad iyo aad bulshada Soomaaliyeed ay uga dhiidhiyeen isla markaana falcelin fara badan ay ka timid iyo arrintii ganacsigii Soomaalida iyo waliba dilkii ku soo badanaya Soomaalida Kenya saddexdaas qodob markii ugu horeysa aan ku hormarno Cismaan arrinta Hirshabeelle maxaad kala socotaa وري عثمان أرنتا هيرشابيل واحد مودا إنه حلقان كوسو عادي يضو لو دريري إن دلك دورشة وعاده كما قناشها مامولك هيرشابيل ومدحوينها كوية هي علي قودلاوي ما أنت شركة كمسوق يبقى درتيسنا وباقضي مركا وحالي سليه كرا علي مهل المنانتي مامول قبل لو سمين جري markaan arkay waxyaalo badan ama aan dad badan la xiriiray waxa la ii sheegay cali inaanan sida maamul goboleedada Jubbaland iyo Puntland iyo Galmudug waxa loo sameeyaa maamuus waxa loo sameeyaa wax la yiraahdo hadii ay ka biyo diidaan maamuus baa loo sameeyaa maahan oo kaliya miyaad leedahay arrintii la xiriirtay dhaqaalihii wabiga mashruuc wabiga lagu dhisay ma aha oo kaliya laakiin waxa la xiriirta qadarin waxa ka waayay invitation ka ra'iisul wasaaraha عثمان هرتا دقالها مامول قبل هذا بدن ودقالة دولة ويكحن بتاجر هذا سومالان مسبحي مدحينها سومالان وحش شيء العقل 1 مليون أو دولار لو قلت لك علي إن لو هرمرية سومالان إن دولة وكحن بتاعي مركا بنتلان هوري وعبنا يسي هيرشابيل دقالها هذا أي كعبنا يسو حتى حلقي أو مدحينها كها واري على شيء سوي جرته مركا أنا وحنا أرنتان كمغناشها عن كوسا لانكرا إن أي تهاي قدرين iyo xushmad la'aan oo la isdhigi kara la iska yiri waa maamul yar oo marka arrintaas u sabayn kara waxyaabaha uu tiigsanay waxa kamid ah ama inta badan social media hadda la leeyahay markii ay maqnaan jireen Dani iyo Axmed Madoobe waa loo hakin jiray laakiin tan waxay u muuqataa in asiga loo hakan marka soo uma muuqato arrintaas dawladda inay ku qaldantay Cusmaan arrintu waa shir furma ma jiro shirku wali waa xiran yahay waxa la sugayaa isaga wargey baa loo diray marka علي قودلاوي runtii waxa inta badan lagu xantaa inuu de filada ka tirsan yahay dawladda aad u weyn laakiin sada arrintan la saadaalinay waa dhanka ra'iisul wasaaraha dhankan waxay ka socotaa arrintan waa dhanka ra'iisul wasaaraha sida la sheegayo insha Allah shirku maanta ma soo dhicin maanta inuu furmo bay ahayd balantu arrinta wuxuu u baaqday maamulka Hirshabeelle marka haddii aan qodobka taas ugu gudubno Cismaan Ciriir oo adoo mahsan arrinta Ethiopia soo lama oran karo dawladda federaalka Soomaaliya way ku qaldantay in tan Kenya ay xanibto isla markaasna ay saarto cunaqabateen in u diido ganacsiga Kenya ee qaadka Soomaalida ee la lahayd isla markaana ay fasaxdo kin Ethiopia oo waliba ay ku bedelato kalluun عثمان هرتا دتكو صوماليدو دي دولة war ka soo yeelo dadna way soo dhaweeyeen dadna way mucaaradaan anu arinta waxaan u arkaa guul soo hoyatay anu u sababeynay baayaha ka jira dalka Soomaaliya inta badan kalluunka Soomaaliya Yemen baa loo dhoofin jiray dawladda Yemen dagaalaha ka socda dagaalo sokeeyo iyo dagaalo argagixiso iyo xuutiyiinta iyo dawladda wax saaya marka Soomaaliya kalluun wax soo saar bay leedahay waan soo dhaweynayaa kalluunka Soomaaliya in lagu loo iibgeeyo dalka Ethiopia aniga askalifa in Kenya marka hore u diido in Soomaaliya ogolaato Kenya arrinta Kenya sababta diida waxay tahay Kenya shuruudaha la soo hordhigay shuruudihii waxa kamid ahaa in qaadka Kenya laga keeno lagu bedesho badeecad xoolaha nool oo kaleeto iyo kalluunka iyo waxyaalo iyo qudaarta iyo waxyaalo la mid oo kale Kenya way diida mar walba Kenya waxay la baxdaa lacagkaasha qaadna way keentaa marka arrinta Ethiopia isla qaadka Ethiopia anigu waxaan u arkaa guul Soomaalida u soo hoyatay dawladda federaalka u soo hoyatay way sababtoo ay kalluunka markuu waa la cashuurayaa
ganacsatadii dadkii soo jilaaban jiray waa waxay ka helayaan dhaqaale ka helaya marka arrintan waxaan u arkaa guul Soomaaliya u soo yimid marka shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay arrintaas soo dhaweeyaan kalluunka Soomaaliya oo dhinac kale ay ka fiiriyaan dhinac aysan ka eegin dad baa wax leeyihiin suntii baa wax lagu bedelanayaa qudaartii iyo waxyaalaha saas qodobka u dambeeya adigoo raali ah waqtiga cariir nagu ah aad baan kaaga mahad celinaa arrinta u imow ganacsatada Soomaalida ku dhiban Kenya iyo qafaalka Kenya Kenya maadaama ay tiri xiriirka waa soo celinay wax isbedelna kama sameyn sidee wararta arrintaas horta waayadan dambe 3 bilood ugu dambeysay afduubku wuxuu ka bilowday wiil dhalinyaro ah oo ganacsada oo Mareykanka ka soo jeeda ninkaas runtii ganacsi wuxuu ku lahaa dalka Kenya ninkaas runtii isagoo meeda oo hilibkiisa la jarjaray waxa laga soo reeyay duurka isla maamul kadib hablaha la afduubtay iyaguna oo ganacsata ah marka arrintaas Kenya waxay ku xumeynaysaa Soomaaliya xiriir la'aanta iyo waliba ganacsiga laga xiriiray awgeed waxay isleeyihiin soo arrinta Soomaaliya cadaadis hal la geliyo teeda kale tumsan duqeyn baa jirta Cusmaan maanta ugu dambeysay duqeyn baan dhacday isbuuc hore waxaynu ka hadlaynaa duqoontii loo geystay gobolka Gado isla maanta gobolka Gado waxa ka dhacay duqeyn marka Kenya daandaansi bay waxay wadaa arrinta badii baa jirta iyadana waxa jirta dadkii wala duqeynayo oo dadkii reer Gado la duqeynayo waxa kale oo jirta ganacsatadii ku nool dalka Kenya in la ugaarsanayo marka dawladda Soomaaliya waa inay jawaab cad ka bixisaa maaha in maalin walba bayaan la soo saaro waa inay inta awoodeeda ahi anigu Soomaalidu waxaan u aqaanaa hadii dhiig Soomaaliyeed la daadiyo inay iyaguna dhiig Kenya daadiyaan waxa jirta banaanbaxyo ay dhigayeen dad Soomaaliyeed dalka Ingiriiska qaasada magaalada London oo qaadiid uu soo abaabulay safaaradda Kenya iyo isku soo baxa ee London ay sameeyeen maxay ka bedeli kartaa isla saameynta arrintaas banaanbaxa oo UK laga abaabulay runtii macno weyn buu soo kordhiyay waad ogeedo dhaqaalihii UN-ku ay bixin jireen waliba qaladan reer Yurub dhaqaalihii 45 milyan sanadkii ay qaadan jireen waa la joojiyay sababta loo joojiyay waxay tahay xasuuqi loo geystay dadka waxaad ku dhiirgelinaysaa Yurubta kale idil sidoo kale inay ku daydaan isla markaana isku soo baxsamayaan sida Vienna Sweden Stockholm Soomaalida meel walba joogto ay muujiso sida ugu soo horjeedo aad weyn Soomaalida Yurub way ku kala badan waliba dadka degan America waxaan baaq u dirayaa sidaas oo kale inay banaanbax ay sameeyaan waddanka aan joogno insha Allah waan ka sameyn doonaa Sweden Norway Jarmalka meel walba in banaanbaxa Soomaaliya lagu taageero wata Cismaan aad baad mahadsan tahay barnaamijkeeni maantay oo aan waqtiga aan ku soo koobaynay saddexdaas qodob intaas aan ku soo gunaanudeyna aniga saaxiibkay Cismaan Ciriir oo barnaamijka igala qayb qaatay dhamaanteen waxaan idinkaga tageynaa sida ay nabadeena Cismaan waad mahadsan tahay adigana intaan barnaamij kale ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh